komishanka doorashooyinka ee Somaliland ayaa kulamo gooni la yeeshay shirgudoonka golaha guurtida iyo wakiilada ee Somaliland kulamadaasi oo ku saabsanaa habkii ay u qabsoontay qaadashadii kaarka codbixinta ee dhawaan la soo gabagabeeyay iyo diyaar garowga loogu jiro qabsoomidda doorashada la filayo inay Somaliland ka dhacdo 2 bilood kadib waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay xubnaha komishanka doorashooyinka uu hogaaminayo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Cabdiqaadir Iimaan وبيل إحنا مع موت بينه عليه. وبيل إحنا كام مع الموت بردونينا مركعه وحيانا قبلني نوقف صومي يو وحينور دمان يو ديال قلوب دور الشرق يهذا وحنا ما يعني ندير السعوديين ندور بدني. نجد أنا بدور بلاد عايز سعودي لا سبتمبر سنة كلا بكون تطبيق طبعا أي سوق بجبودي كار قايبنتي قبل لا أردن سفي عنا لوجا قايبيه قفل بين الجارسي كاركيسين في الهالاتك بحي كلا صار نقدينا كمش قدر شوين كأيه هيا لكن تتكلم في الهالي ولا قيبي ترفع عنه ولا قيبي مركحين أوران كرنا وين كقولي السنة دي تهيد يرجع وجه هره يهدي تهاي كار قيبنتي يهدي تهاي صحرنتي أجاب كويحي صحريبه يقلب كبا waxay isaguna runtii aad u muhiima si loo soo lingaxo wixii kaararkii soo noqday waxaan ku jirnaa tirintoodii waxaan sidoo kale ku jirnaa kaydintoodii ayaynu labadaaba ugu jirnaa waxaad tani noo soo bixi doonaa liiskii kama dambaysta ahaa oo sidoo sharcigu faray ay tahay inuu xisaabta qaranka aynu u qaybino iyo wasaaradda arrimaha gudaha si komishanka laftigiisa loogu ilaaliyo tirada codadka ka soo baxaysa ma tahay tii ay faafiyeen oo ku salaysan goob kasta inta card ee la geey inta warqadood ee la geyn doono si aynu uga digtoonaano in hadda warqadaha la soo dejiyay qaar baa lagu codeeyay marka horeba way sii taala xogta qofka magaciisa si yaala sawirkiisa si yaala tirada xisbiyadana marka horeba waa la sii siinay tirada dadka ka codeynaya goob kasta qalabkii doorashada lagu gali lahaa ama agabkii doorashada noocu yahayba waxa la wixii dibad looga baahnaa kontraageedii waanu baahinay caalamka loo baahiyay shirkado fara badan oo ajnabi ah ayaa soo tartamay waa la qiimeeyay kuwii ugu wanaagsanaa ee ugu quality-ga wanaagsanaa waqti ugu habboon keenayay ayaa la doortay iminkana waxa ku jiraan qorshihii daabacadda iyo soo diyaajinta qaar iminkaba soo fuulayaan alaabtii oo dhawaan weyn ay maraysaa komishanku waxa kaloo diyaarinayaa qandaraasyadii gudaha oo iminka diyaara sida gaadiidka iyo wax qalabka lagu daabacayo gudaha magaalada waddanka gudihiisa iyo wixii la mid oo isaguna iminka diyaara in la baahiyo insha Allah ana dhawaan ka arki doontaan warbaahinta gabagabadii waxa halkaasi dardaaran uga soo jeediyay xubnaha komishanka doorashooyinka ee Somaliland gudoomiye ku xigeenada golayaasha guurtida iyo wakiilada ee Somaliland idinkana taariikh waxa idinku filan tiimkiina si doorashadii ugu xasaanid intaad qabateen lagu guuleysto lagu kala adkaado la isku hambaliyeeyo bayj cusub inoo furmo laakiin tii ugu muhiimsanayd ee dadku wada eegayaan ayaa idin xaqay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa taana inaad ku guuleysataan runtii doorashadan waxaa moodaa inay doorashooyinkii hore ay xoogaa ka yare duwan tahay ama ha ka adkaato ama systemkooda dee systemka maaragtay ha ka yaro duwanaado keliya waxaa laydinka baahan yahay waxa weeyaan dee inuuna aad ku maaragtay imtidaan oo go-aankiinuna uu noqdo dee go-aan adag xamse cilmi axmed universal TV hargeysa